nin haddaadan iska celinna haddaadan nin iska celinna iga joog ma yaqaano. nin walbaba waxa weeyaan wadnaa ku yaalla waa la isugu tegey dagaalkaana waxa ka dambeeya oo dabka shidaya oo dadka duminaya oo laascaana kusoo duulaya oo qadiyada wata waa in Cumar Geelle muuse biixi waxa dabada kasoo riixaya waa in Cumar Geelle iyo xasan sheekh labadaba way soo riixayaan laakiin amay tahay nimaan kuu furi doonin iyo kuu rarin qadiyada ay wadaan inay Cumar Geelle iyo xasan sheekh oo ay laascaano duulaanka ugu yihiin laascaano dad baa iska leh qofkuna gurigiisa hadduu ku gablamo iyo hadduu ku baaba'o geeridiisu waa xaq laakiin ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa soomaalina waa u jeedaa xasan sheekh wuxuu uga hadli la'yahay oo uga juuq la'yahay wuu hadlay muxuu yiri saaka maciigi waa ka bariyey saaka ayuu hadlay dagaalkii ayaa kululaaday adigu wuxuu yidhi wiil iyo abtibaan isku yahay laakiin dowladda go'aan bay soo saartay ay tiri macaawinaan gaadhsiinaynaa dawooyin maan gaadhsiinaynaa dagaalkana hala joojiyaa la yidhi maanta go'aan bay soo saartay dowladdii Soomaaliya xaaladdu markay kululaatay hadalka uu hadlay waa markii la gubay ciidamadii ka yimid mataqaanaaye Somaliland markii la gubay markuu arkay in laga guuleystay wax u joojinaya mal aniga dhulbahanta message baan u diri lahaa kol anigu dumar baan ahay inkastoo aan qof cod la ahay dhulbahanta hadal baan u diri lahaa adduunkan saacad baad ku leedihiin saacadiinina maantay taagan tahay xabadda laydinla dhacahayo muuse biixi idinlama dhicinin xabadda laydinla dhacahayo waxaa idinla dhacay in Cumar Geelle iyo xasan sheekh maxamed baa idinla dhacay dalka lala dhacayana waa dalkiinii haddaad maanta midowdaana daraawiish baa tihiin cid idii hawaysan kartana ma jirto tolna waa ka dhalateen hadday tolkiin idii hagarbaxayaan hadday idii hiilinayaan hadday garab idin siinayaan tol baa ka dhalateen waxaan idin leeyahay xabad aadan adigu iska fujin ninkaa fujin maayo intaad xabad gabar idinka nooshahay inta wiil idinka nool yahay taariikhdaa idin qoraysa maanta heeriyada gumaysiga iska qaada diida nabad xabadda isaga celiya ninka hoobiyaha kugu garaacaya waa nin baqay xasan sheekh baa kuu soo haray qadiyada ka buuxda biyo intuu cabahays matajiyo dhulbahanta wadankooda ayagaa iska leh laascaana ayagaa iska leh dhulkooda ayagaa iska leh qabiilka uu la ordaayo iyo meesha uu maagan yahay amay dhulbahanta maanta tanu dan ugu jirtaa SSC la dhisaa oo gobol la siman noqotaa oo calanka SSC Hargeysa laga taaga anigu waa bilif garaysnay daraawiish inay calanka SSC Hargeysa ka taagi karaan runta idin sheegayaaye ay zooba idin leeyahay waxa idinku dhaca way dhacdaa waxa idinku dhaca dhexda xirta waxa idinku dhaca dalkiina waa xoreynaysaan gabdhihiina cuntada idinla garab taagan iyo wiilasha qoorta dheer waa laga maarmaa wiilasha qoorta dheer ayagoo nool baa la leeyi jiray ayaga oo Soomaalilandnimo rabaa la cuni jiray hoos baa loo baabi'in jiray maantana geeridood waa xalaal marka waxaan leeyahay dagaalka maanta laascaana ka socda ee dulmiga ah ee muuse biixi uu soo hogaamiyey ee mataqaanaa in Cumar Geelle oo wadankiisii baabi'iyey uu soo diray ee xasan sheekh uu ka aamusay ciyigii waa ka bariyey ninkii cunay baa ka liita ninkii cuna baa ka liita maanta xasan sheekh warkiisa haddaa maqashaan idinkaa ka liita war hore ha loo socdo waxaad wadaana jihaad baa tihiin ninkii dhoof ku yimid bayna geeridu dhimaysaa waan ka baxaysaa hooyo macaan soo dhawow